السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal cashirkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa qaybteena saddexaad ee foundationka Englishka number 3 oo ah verb hore waxaan u soo baranay waxa la yiraahdaa noun iyo pronoun oo waan fahanay qaabka loo isticmaalo iyo sida ay u shaqeyso iyo waxyaabo loogu baahan yahay inaad dhisto okay markii aan ka soo gudubnay labadaasi verb kani ama qaybta maanta aad joogno wuxuu aad muhiim ugu yahay jumlad dhamaystirkeeda oo jumlad bila verb ah waa jumlad aan dhamaystirnayn okay verb maxaa tahay marka verb shows action or state verb wuxuu tusayaa qofka mise uu ku soo bandhigayaa action ficil or state xaalad markaasi uu ku jiro shay ama qof like doing oo gacanta kula jiro markaas or being means uu ku dhex jiro macnaheedu waxa sameynayso iyo xaalad markaasi aad taagan tahay tusaale wax baan qorayaa waa I am doing or I am writing being means like wax baan dhageysanayaa so dhageysigaas waa being listening okay so verb marka haddii aan si fiican u qeexo waxa waaye is a doing word or a doing action it shows action or state okay so the main word that tells what happens or how someone is waa the main word waa ereyga ugu weyn that tells kaasoo ku sheegaya what happens wax dhacaya or how something is ama sida shay uu yahay okay meeqaad u kala baxaa marka types of verbs meeqa u kala baxaa marka okay kan koowaad waxa waaye action verb shows action verb ka macnaha wuxuu ku sheegayaa actionka macnaha ficilka markaasi dhacaya ama uu ku dhex jiro xaaladda markaasi qofka uu ku jiro waa action means markaasi ficilka dhacaya okay like example run jumlada waxa laga yaabaa inaad ku dhex aragto run waa orod eat cun write qor okay so kill sidoo kale waa idana waa doing action waa action verb play waa action verb sleep waa action verb so example she runs fast waxay u ordaysaa si saa'id ah ama si xooli ah okay so fast means xooli oo waxa waa speedka ayuu qiimo wax ka sheegaya okay state kalabaad waxa waa state or linking verb state waa isticmaali kartaa state verb or linking verb so linking verb maxaa tahay marka shows being or condition wuxuu sheegayaa xaalad markaas uu qofku ku jiro okay example like wuxuu isticmaalayaa marka be iyadoo marka la raacinaya is am or are seems or become sidoo kale intaas waa la raacinayaa example she is happy okay he is happy asaga wuu faraxsan yahay so waa linking verb istaas marka waxaa loo isticmaalaa linking verb oo ah waxay isku xiraysaa subjectigii iyo ficilkii tusaale aniga faraxsan so Yusuf is happy Yusuf waa subject is markaas waxaan u isticmaalaynaa linking verb or I am happy sidoo kale amtas waxaa loo isticmaalayaa linking verb they are playing they waxaa by subject are tas waxaa markaas linking verb happyna waa verbkii okay the soup tastes good so tastes waa wuxuu dhadhamayaa si wanaagsan so tastna waa linking verb the soup is good waa dhihi kartaa laakiin waxaa meesha ku qurux badan tests bedelka is isticmaalaad tests aa isticmaalaysaa taasoo loo isticmaala state or linking verb auxiliary ayaa la yidhahdaa or helping verb auxiliary verb or helping verb muxuu sameeyaa marka helps make tenses wuxuu ka caawiyaa jumladda in ay ka dhabismato waxa la yidhahdaa tenses negative waxyaaba diidma ah then question su'aal so diidma iyo su'aal waa isku mid waxa waaye question or negative waaye like maxaa markaas ku arki doontaa meesha jumladda maxaa marka ku dhisi doontaa oo auxiliary verb ku noqon doono or helping verb ku noqon doono do like do you want to eat ma rabtaa inaad cunto do you like playing ma rabtaa inaad ciyaarto okay be sidoo kale will you be available ma noqon doontaa qof la heli kara okay have oo kale I will have to eat food waa inaan helaa cuno ama cunaa I will eat waan cuni doonaa they can
come way imaan karaan anytime. We may go anytime aan bixi karnaa mar kasta. Like we may laga yaabaa inaan baxno anaga. Example marka I have finished food. Like I have finished the food. Like waan dhameeyay cunada. So have marka waxay noqonay waa helping verb. Okay? Do you like it? Ma jeceshahay ama ma ka heshay? Waa helping verb. waxaan filayaa inaan intaas isla fahanay. Okay. Modal verb marka. Number 4 waa modal verb. Special helpers showing ability, permission, advices. Example, can, will, may, must, should, will. Okay. Aan macnayno. Modal verb. Special helpers showing ability or permission. wuxuu sheegayaa mise uu ku tusinayaa ability, awood ama permission, fasax ama advice, la talin. Tusaale, can, could, may, must, should, will. Example oo jumlada ah, she can swim. Iyada way dabaalan kartaa. So can means way awooda inay dabaalato. So iyada way dabaalan kartaa. You should study. Waa inaad barataa ama aad akhrisataa. You should study. Waa advice waa inaad akhrisataa. You should study. Example ku soo socdo, you should study. Waa inaad akhrisataa mise aad diyaarisaa. Okay? So either waxaa loo isticmaalaa markaas ability, permission or advice. In aad intaas mid ka mid ah aad u isticmaasho. Okay, example kale. Tusaale, must isticmaalina. You must sleep. Waa waajib inaad seexataa. You must sleep. Waa inaad seexataa si aad u nasato. So you must sleep. Okay. Regular and irregular verb. Regular and irregular verb. Okay, regular marka. Regular wuxuu ku darayaa verbka wuxuu ku darayaa ed. Ed ayuu ku darayaa in past tense markaad isticmaalayso marka. Markasta oo regular isticmaalayso waxaa soo galaya meeshaas past tense oo ed la raacinayo. Tusaale, walk hadaa soo isticmaalaysid. I walk to school. Then waxaa dhahaysaa I walked. Ed raacay. Okay? Intaas inaad isla fahanaan rajaynaya. So regularga waxaa waaye waxaad isticmaalaysaa past tense oo verb ah adigoo raacinaya ed. Okay? Irregular marka. Irregular change differently. Wuu ka duwanaana marka. Tusaale, you want to go to school. So markaad dhahaysa I go to school. You say I went to school. So I go to school, I went to school. So waa laba kala macnihi waa isku mid laakiin regular iyo irregular kala yihiin. Okay? So ayadana waxaan filayaa inaad ila fahanteen. Tusaale, waxaan isticmaalnay tan walk isticmaalnay, then past tense of walk day noqonay. Then irregular marka, irregular. So changes differently. Way ka duwanaanaysaa marka. Meeshii ed ma ku darisid laakiin ereyga isbedelay. Hadduu go ahaa, you say went. Okay? Taas marka waxaa waaye irregular verb. Okay. Verb forms. Ficil samaysmaya with a simple tense example. Idol raacinaya and a simple tense example. Idol raacinaya simple tense example. Example, present tense. Adoo isticmaalaya verb. Waxaa dhahaysaa I eat. So present tense, I eat. Ani waan cunaa. So present waa daily, you do. Markastaa samaysa I eat. Then you say he eats. So kale asaga wuu cunaa. Macnaa cunuu cunaa. Past marka waa la soo dhaafiyaa. So past wixii la soo dhaafo shalay dhacay I ate. Meeshii eat ahead waa isbedelay. You say I ate. Okay? Inaa ifaanteen rajaynaa meeshaas. So present continuous tense. Present continuous tense waa ficil soconaaya oo hadda dhacaya waana socdaa. Like you are doing something. I am eating. Aniga waana cunayaa. He is eating. She is eating. They are playing. We are eating. So intas mar hada aragtid ing ficil ku jirta aragto, that ficil waxa waaye present continuous tense oo aan kusoo baranay cashiro hore. Future tense marka. Future tense. Future marka soo xadinay waa wax aan dhicin oo dhici doono. Waa will ana isticmaasho. I will do. I will sleep. I will eat. I will play. I will study. I will go. I will travel. So will. Sidoo kale waad u isticmaalaysaa verb forms and simple tense. Waad u isticmaalaysaa examples. Exercise marka.
in cashirka ku horeeyay oo aan ku baranayn pronoun hal qof isku soo dayay oo su'aalihii access ka soo jawaabay inkastoo xoogaa ay ku yar adkaatay balse waxaan commentiga inkugu soo qoray balse qofkaas aan ugu qoray in uu ku noqdo cashirkaas uu si fiican muuqaalka u soo daawado kadibna uu iska saxo waxaan rabaa adoonan fahmin inaadan meeshan imaanin macnaha hadda tan qalad waxay cadeynaysaa inaadan muuqaalka soo dhammaystiranin oo haddii aad muuqaalka dhammaystirato jawaabta su'aashan way kugu fududaanaysaa. Okay, exercise marka short exercise. Identify the verb. waxaad meeshan jumladan waxaad ka soo dhex saartaa verbka ku jiro hal erey oo verb ku jiro bal ka soo dhex saar. They play football every day. waxay ciyaaraan banooni maalin walba. way ciyaaraan banooni ama waxay ciyaaraan banooni maalin walba. So meesha waxaad ka soo saartaa jumlada waxa ku dhex jiro verbka ku dhex jira ayaan rabaa inaad ka soo saarto. Change to past tense marka jumladan waxaad u bedeshaa past tense. waxaad jumladan ku bedeshaa jumladan waxay tahay she walks to school. waxay u socotaa school. she walks to school waxay aadaa school ama waxay u lugaysaa school. waxaa u bedeshaa marka past. I think inaan cashirkan qaybta ka horeysay oo qaybtan inaan ku soo baranay macnaha meesha shaygaas uu yahay. So waxaan ka rabaa she walks to school waxaa ku bedelaysaa past tense wax past oo la soo dhaafay oo shalay ahaa. Okay, so waxa isbedelay ereyga isbedelay cashirkan ku soo sheegay markaad aragtid walks markaad aragtid waxa isbedelay wax ku darsamay waa soo sheegnay. waxaan rabaa marka inaad iiga soo jawaabtaan haddii aad fahanteen iyo haddii kale waxaan ku ogaanayaa labadan su'aalood inaad jawaab saxan aad ka keento. insha Allah muuqaalkiisa xiga oo taxana ah waxaan ku baran doonaa qaybta kale ee xigta. waa kulanti dambe insha Allah intaan kulmi doono muuqaalkiisa xiga waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.